الله مهله ونوسور تجليه ما أنت هنا هالكن سوي مانو إن المناسبات أن كسب بندقنه قرشها سجالات هرمرين تقارنك قرشو شن سنة وأيصاد يارسي صونا قد بسي وزارة قرشينتا مالكشيغا إيو هرمرينتا دقالة كاس وأيصاد أنسحيين قولها وزير هذا بشي سبتمبر سنة كام شن سنة أيصاد صعوتا دولا هيرادو وحالا مرمانا إن أبا وعدقنو دباتوين صونا نقضي دقالة هنا إيو وحصوصار كينا نولكا دقي أونا داوعي سيدا فتاادها أبارها annagoo dhaqan gelinayna qoraalada laga soo diyaariyay wax ka qabadka arrimahaas oo idil sidoo kale waxa laga maarmaan ah inaan diiradda saarno fayaqabka ama saxada shacabka Soomaaliyeed annagoo ka shaqeynayna sida aan ugu soo celin lahayn hay'adaha tayadhowrka si aan u xaqiijino caafimaad ahaan iyo taya ahaan waxa Soomaaliya dibadda uga yimaada sidoo kale si aynu u dhiirigelino wax soo saarka dalka waxaan farayaa hay'adaha ku shaqada leh oo ay ugu horeyso wasaaradda maaliyadda xakamaynta waxyaabaha dibadda nooga yimaada ee dalkeennu awood u leeyahay inuu soo saaro way muuqataa in qorshaha 5 sano ee hadda hor yaalla oo aan haysano buugtooda uu yahay mid ku dadaalaya fududeynta iyo xoojinta geed socodka iyo habraacyadii aynu horay u degsanay ay ka mid ahaayeen qorshihii soo kabashada iyo u adkeysiga ee loo yaqaano RRF Recovery and Resilience istaraatiijiyadihii muhiimka ahaa ee aynu u degsanay si aynu u higsano yoolal gaar ah oo noo horseeda xasilooni siyaasadeed dhabu heshiisiin bulsho iyo horumar baahsan oo dalkeenu u hana qaado ama ka hana qaado waana taas sababta loo xushay in qorshahan xooga lagu saaro 4 qodob oo aasaas u ah horumarka dalka iyo dadka Soomaaliyeed kuwaas oo kala ah koow in la helo deganaansho siyaasadeed oo hawsha la qabanayo horumarkeeda si isdaba jooga oo xiriir ah loo qabto waxa loo yaqaano continuity oo xaqiiqatan wasiirka soo diyaariyay qorshahan aan oran karo inuu yahay 20 sano ugu dambeysay wasiirkii qorsheynta ugu cimri dheeraa macnaheedu waxay tahay continuity-ga shaqada isdaba jooga ah waxay leedahay miro dhal la taaban karo maxaa yeelay hawshii bilaabata waxay ku bilaabataa qorshe sidaan oo kale iyo dhamaystir marka waxaas oo dhan waxay ku imaan kartaa siyaasad degan oo xasiloon iyo ku imaan kartaa xoojinta amniga taasoo lagu adkeenayo waxa loo yaqaano luqadda Ingiriiska law and order ama deganaansho loo yaqaano iyo kala dambeyn tan saddexaad waxay tahay hor in loo qaado kobaca dhaqaalaha iyo horumarintiisa hor loo qaado si aan u dhiirigelin maalgashi iyo shaqo abuur tan afaraad inaan horumarino aqoonta iyo waxbarashada oo ardadeen aan siino waxbarasho tayo leh wadan walbaba inta ardadiisa iyo tacliintiisu leeg tahay iyo horumarkiisana la egyahay saas darteed waa inaan xoojino waxbarashada hadday tahay heer jaamacadeed hadday tahay heer farsamo iyo dugsi sare dugsi dhexe iyo dugsi hoose taas weeye waxaan kula tartami karno caalamka intiisa kale waana bilownay oo waad ogtihiin ayaan dhowdaan daafurnay waxbarashada dugsiga manhajka waxbarashada dugsiga dhexe oo aan hadda u soconno inaan dhamaystirno waxbarashada dugsiga sare oo aan bilownay arday gaaraysa 65,000 oo arday inay helaan waxbarasho lacag la'aan ah intaas waxa aasaas u ah dawlad wanaag wax kasta anigu aan sheegay oo igu horeyso deganaansho iyo xoojinta amniga iyo kobcinta dhaqaalaha iyo kor u qaadista waxbarashada
waxaa aasaas u ah dowlad wanaag, dowlad nadiif ah oo wada shaqayn leh oo u shaqaynaysa danta dalka iyo dadka u shaqaynaysa. waxaa xusid mudan in qorshahan si gaar ah loogu xusay 4 qaybood oo bulshadeena ka mid ah, loona baahan yahay in mudnaan gaar ah la siiyo kuwaas oo kale ah dadka reer guuraaga ah oo inta badan markii abaare yimaadaan iyagu ay noqdaan kuwa u dhibaatooda inay noqdaan. dhalinyarada aan u baahannahay inaan shaqo abuur u sameeyno marka aan kobcinno dhaqaalaha aan u sameeyno shaqo abuur dhalinyarada. haweenka oo laf dhabarka ee bulshadeena ah hadday tahay dhaqaalaha iyo hadday tahay familkaba iyaga naftooda aan kor u qaadno dumarkeena iyo dadka baahiyaha gaarka qaba oo aan u baahannahay inaan caawino oo aan gacan siino. haddaba dhammaan hay-adaha dowliga ah oo ay ugu horeeyaan wasaaradaha, wakaaladaha, xafiisyada dowladda ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaan dhammaantood farayaa inay marka ay dejiyaan qorshaha istiraatiijiyadooda ee sanadlaha inay si toos ah ugu soo xidhaan lana jaan qaadaan qorshaha horumarka qaranka ee 9aad ee aanu maanta ku dahfurayno halkan, annagoo mudnaanta siinay adeegyada dadka aan sheegay ee aan hore u sheegay oo aasaasiga ah. dhinaca kale si taasi la mid ah dhammaan hay-adaha aan dowliga ahayn oo ay ugu horeeyaan hay-adaha qaramada midoobay kuwaasoo aanu wada shaqayn joogto ah leenahay iyo sidoo kale hay-adaha ka shaqeeya arrimaha horumarka iyo samafalka waxaan ku adkeenayaa amaan farayaa inay dib u eegis ku sameeyaan qorshahooda howleed ee sanadlaha ah ayna hubiyaan in qorshaha ay dalka ay ka fulinayaan uu la jaan qaadi karo qorshaha maanta aan ka hadlayno oo ah horumarinta qaranka ee 9aad aynu maanta dahfurayno. mudanayaal marwooyin sidoo kale waxaan ugu baaqayaa dhammaan aqoon-yahanada Soomaaliyeed iyo xirfadlayaasha aqoonta durugsan u leh ka shaqaynta hay-adaha dowladda hadday noqoto wasaaradaha, wakaaladaha, safaaradaha iyo dhammaan xafiisyada dowladda inay muruqooda iyo maskaxdooda iyo khibradahooda ay dalkooda hooyogeliyaan hadday dibad joogaan iyo hadday gudaha joogaanba labadaba. waxaan si gaar ah dhammaan hay-adaha qaramada midoobay iyo dhammaan kuwa kale oo aynu bahwadaagta nahay ee ka shaqeeya samafalka iyo horumarka aan ku boorinayaa inay nagala shaqeeyaan sidii aynu u hirgelin lahayn qorshahan kaasoo si weyn ula jaan qaadaya dhammaan 17 yool ee horumarka waara ee golaha guud ee qaramada midoobay isla qaateen bishii Sebtembar 2015 lagana shaqeeyo sidii dalalka dunida ay u hirgelin lahaayeen ilaa laga gaarayo 2030. ummadda Soomaaliyeed waxay maanta u baahan tahay inay ku mintido horumarkooda qarannimo iyadoo urursan midaysan isku laabfiyo ayna markaas laba jibaaraan dadaalkooda ku aadan wax soo saarka noocyada kala duwan hadday noqon lahayd dhaqashada xoolaha, beeraha, kalluumaysiga, warshadeynta iyo wax dhoofinta, tiknoolajiyada iyo isgaarsiinta, bangiyada iyo hay-adaha maaliyadda, dalxiiska oo aan isleeyahay Soomaaliya aad iyo aad yaan uga daahsannahay iyo ka faa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah uu Ilaahay nagu manaystay. sidoo kale waxaan dowladda ka go'an in qorshahan horumarneed uu horseedo u noqdo sidii aan u dhaqangelin lahayn istiraatiijiyad dhammaystiran oo lagu dhiirigelinayo maalgashiga dalka si aan u gaarno horumar dhaqaale oo baahsan iyo ganacsatada aan u abuurno fursado ay ku heli karaan maalgashi dibadda ah kuna gaari karaan suuqyada caalamka. si taas la mid ah waa in qorshahan ay ka dhashaan fursado shaqooyin loogu abuurayo dhalinyaradeenna oo ka soo aflaxa ama ka qalin jabiya jaamacadaha iyo dugsiyada sare. haddaba xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed waxaan farayaa inay ku dadaasho dhiirigelinta
fududeynta iyo xoojinta maalgashiga qaranka iyo jawiga maalgashiga Soomaaliya uu noqdo kan ugu sahlan uguna wanaagsan marka la fiiriyo geeska Afrika si aan ula jaan qaadno suuqyada maalgashiga gobolka iyo kuwa caalamka waxaan u baahannahay inaan isku tashanno isku tiirsanaanno una tartanno sidii aynu u taabagelin lahayn qorshahan horumarinta ah ee qaranka ee sagaalaad ee aynu dhigannay waxaan rajaynayaa in maalinta ka dambaysa aynu gaari doonno guulo taariikhi ah kuwaasoo Soomaaliya ku soo celin doona booskii ay caalamka ku lahaan jirtay insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo gabagabadii gunaanadkii waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa dhammaan shaqaalaha wasaaradda qorsheynta sida wasiirka wasiir ku-xigeenka xogayaha guud iyo dhammaan howlwadeennada wasaaradda oo habeen iyo maalinba u soo jeeday waqti badan ku bixiyay diyaarinta qorshahan fulinta qorshahan waa waajib saaran dhammaan wasaaradaha iyo hay'adaha dawliga wasaaradda qorsheynta sidii golaha wasiiradu ay u go'aamiyeen 26 Sebtembar ee sanadkan waa inay hubiyaan oo xoogga saaraan in qorshahan uu fulo waa mahadsantihiin